تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها دادي سنتي ويناتي اعتزال بوسمي اعتزال ومحي يعني مجتمعي بكدح بحي عباد المركة وتفرقي مالن كينا الصيام حبين كينا القيام مالن كينا الصوم حبين كينا صلاة الليل مرقان إنا أدير واباوي مدو كويري إن أنت يذيبان كسيي وانا كود سينا والله سوق هذا مقالة دي بالله كيني قبل دي بالله مهريي مرقاسي لو نكون عابد عبادة بدن درنا ما هيستو مرقاسي لقول قولك حمام كا قالوا ميدا بالقول دركا جديد كان سو خيرو مرقاسو سو ميدي دركينا او سو خيداي عذرنا او سو مرسداي gabadhii marka aroosadii baa leeyahay waata qolka ku jirtay da aroos baatay orado halka ku hoyay baa lagu yiri salafku habeenka ugu horeysay ee leylatu zafaf waxa hadigooga kamid ahayd inay gabadhuna weyse qabto oo ninkuna weyse qabo qolka aroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yiraahdo inuu laba rakaca uu tujiyo iyada nagu sida ma sameeyna ya haleelaba qola kamera wadatayna haysatabe Soomaa hinde la ilaaha illa allah bataan arkayna dhalinyar halka buuraha hoostooda taagan oo yaa leeyahay war zayigi islaamka oo balmaan qaadana maxaa ku diiday zayigi islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa ku diiday sunnatu caada hatta caadadeeni waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayna dhaqanka islaamka leylatu zafaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa laba rakacay iyo ninku xiriirkiisa uu tujin jiray waxa ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas'uuliyadii aabaha iyo hooyada saarnayd ana kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada ana kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacada nabi maxamed inaan kugu hogaamiye sida labada rakaca aad igu daba tukatay hadeeto aniga iyo daba joog bay ka dhigan tahay sidaas ay ka dhigan tahay la nabigu wakiilaha khayrun nisaa man idha nadarta ilayha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malaka dumarka ugu khayr badan buu nabigu dhawaatay waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisabu rasuulku yiri hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tagana uu ka maqnaadana iyaduna way dhoorsoontoo way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tagi mayso wixii hantiyi adduunya u dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka labada rakacadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadigii saxaabada waa hadigii salafka waxay ka dhigan tahay hadeeto la adiga ana ku imaama ana taacada ilaahay iyo taacada nabi maxamed baa kugu hoggaamine sida salaada aan imaamka kugu ahaa maanta laga bilaabo noloshaada aniga ku imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunna halka fooda in la qabto fooda ducada lagu akhrinaya allahumma inni as'aluka khayraha وخير ما جبلت عليها صمهن خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لذلك إلهي قرآن وكيلها ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ذاتك عبادة كبري صلاة كبر باري مساجد كبر باري طاعة إلهي كبر باري مسكح ذو مرة اسكت هذا ليس بإلهي بقول هدو قارو نك يرانتا كسو بلا بعبادة بقول هدو قارو داديس عقلك سواتام بقوليه كنتن هدو قارو عقلك سواتام لما بقول هدو قارو عقلك سواتام لكن بلا عبادة قفك هدو كبر بارو
لحدن جر هدو قارا مسكحدي سوى اسكو دادتا وشنقري قلو 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 بربا كدا شنقري ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك أبين كورس قبل هالك إلا قبطاء السنة بركا نينكي لباد يركع عمركو كعي أي دبجوك ستي سي لباد ركع وجود جرين صلاة دي فجر بلوغو إعدامي إنك أنا كورما أبين عروسة الله سوهو يدومرك كوير حلا أيو عروس كل رايس دا يوليا وركوان خير كوغا الله فضيه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لما ركع عمود وهابين كي يودن صح نقاس تابعي صلاة بن أشيم رحمة الله عليه سدو أقول جري يا صلاة دي فجر لوغو يا دام يدنا وقبر عابدة بهي وصالحات وسيدي سؤو كلونا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إلهي بقراك كل شيء نندل يرى عيارني شيخ خوي مدو كويري شيخ قبر وناكسن وناكسن وضبيعات في عن ودين في عن يا الرباية sideen ku helaa ii sheeg buu ku yidhi marka sheekhi baa ku yidhi adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu as-saalixa soo nabigu ma odhan nolosha adduunyadu waa raaxa yar raaxada yar ee adduunyadana waxaa helay buu nabigu yidhi ninka ilaahay uu ku hagaajiyey gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan oo wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxa uu keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaata leylkii iyaduna aanan odhan aadaankii fajar kaa dhacay uu ka baxay aqalka ila almasjid subaxdiiba haweenkiiba u yimid caroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabido suufiyo aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tiri aadaankii fajarka iska dahay in laysa salaamee salaadii aan xidhannay labadii ragcadood aadaanka fajarkaa naga bixiyey tidhi isagii baa la qabsaday markaa oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiye xaal caroosadda xaleetoole aad sidaa ugu gashay wuxuu yidhi ininkaa iga gardaran buu yidhi markii u horreysay xamaan baad igelisay inaad igu tirahdeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qaboba moogtahay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kululaa markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhar cusubna waad ii iibiseen oo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad ii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyeyna ay ii dhex taallo qolkaa markaan galayna jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikirayaa salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaadii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba rakacadood maruu aakhirada maruu janno xasuusto iyo maruu naar xasuusto